rakaul karaho lasoo biyo aliya dhabaalo hawl galayo u heelan bulan habeeniyo suba rakaul karaho lasoo biyo aliya dhabaalo hawl galayo u heelan bulan habeeniyo suba hogaan sugan bahayan ka wado horseedkii la tiray la daryo hubaan cusubla deer lagu furay salaamullah asxaabtayda qaaliga ah waxaan rabaa insha Allah inaan soo gudbiyo taariikh yar oo ka hadlaysa dawladda Puntland maadaama lagu jiro toddobaadkii xuska dawladda Puntland oo ku beegan 1998 bishii Agoosto koodeedii dawladda Puntland waxay leedahay 3 awoodood oo dawli ah golaha xukuumadda golaha wakiilada iyo golaha garsoorka golaha xukuumadda waxay ka kooban yihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo golaha wasiirada golaha wakiilada awoodda xeedinta waxa leh golaha wakiilada oo dhan 66 liban waxayna wakiil ka yihiin dhammaan gobolada Puntland golaha wakiilada waxay dhexdooda ka doortaan gudoomiye afhayeen iyo laba ku xigeen gudoomiyaha afhayeenka golaha wakiiladu wuxuu maamulaa kala fadhiyada golaha isla markaana hubiya tixraaca dastuurka ku xigeenadana gudoomiyaha afhayeenka waxay ka caawiyaan gudashada xilkiisa golaha wakiilada waxay leeyihiin gudi dabagal ku sameeya xukuumadda si u fuliyaan adeega bulshada golaha garsoorka waa ka madax bannaan yahay golaha xukuumadda iyo golaha wakiilada wuxuuna ka kooban yahay 3 qaybood maxkamadda sare maxkamadda racfaanka maxkamadda darajada hoose gudoomiyaha garsoorka ee maxkamadda sare oo tan ugu sareysa waxaana magacaabaha madaxweynaha waxaana ansixiya golaha wakiilada madaxdii soo martay dawladda Puntland ugu horeyn Allah u naxariistay madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa xusuusin mudan in uu Soomaaliya ka soo noqday taliye sare intii ay Soomaaliya burburin isagoo laba dagaal ay Soomaaliya la gashay dawladda Puntland kamid ah hogaamiyaashii ciidankii Soomaaliya bilad sharafna ku qaatay wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee dawladda Puntland yeelato uguna gudbay madaxweynihii Soomaaliya isagoo awoodiisa maskaxdiisa u leeyahay dawladda federaalka ah waxyaabaha lagu xasuusan karo inkasta aan soo koobi karin waxaa kamid ah sida halgan guud ee dawladda Puntland sida qaybaha kala duwan ee ciidanka sida daraawiishta booliska asluubta iyo sirdoonka sugida amniga dawladda Puntland oo dhan gobolada Puntland oo dhan soo afjarida colaadii soo martay Puntland 2001 ilaa 2003 maxamed cabdi xaashi wuxuu Puntland ka noqday madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waxyaabaha lagu xasuusan karo waxaa kamid ah hirgelinta doorasho guud ee muddo yar oo kooban isagoo ku qanacsanaa doorashadii lagu guuleystay si dimuqraadi ah xilka ugu wareejiyay madaxweynihii Cadam Muuse Xirsi Boqor Cadam Muuse Xirsi Boqor wuxuu ahaa saraakiishii Soomaaliya ugu wanaagsan dhanka aqoonta intuu madaxweynaha dawladda Puntland ahaana waxa uu qabtay waxyaabo muhiim ah oo la taaban karo waxaana kamid ah sida airportka magaalada ganacsiga ee dawladda Puntland ee Boosaaso sida maxjarka magaalada ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso wax ka qabashada arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo soo saarida shidaalka Puntland isagoo madaxweynuhu heshiis la galiyay shirkado mustaqbalka ka soo saaraya shidaalka Puntland taageerida dawladda federaalka ee Soomaaliya isagoo siinayay taageero ciidan iyo mid dhaqaale iyo waliba mid niyadeed si loo helo dawlad dhexe Soomaaliya madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole wuxuu bandhigyadii Soomaaliya ka soo qabtay jawooyin sare oo gaarsiisna ilaa heer agaasimo guud ee bandhigii dhexe Soomaaliya 2009 waxa uu ku guuleystay madaxweynenimada dawladda Puntland wuxuuna soo kordhiyay horumar la taaban karo Puntland waxyaalaha ka qabtay Puntland waxaa kamid ah dhisida xukuumad aqoon iyo tayo leh dhamaystirka dastuurka cusub ee Puntland xoojinta xiriirka caalamiga ah u dhaxeeya dawladda iyo Puntland iyo beesha caalamka sameynta calam astaan iyo hees u gaar ah dawladda Puntland xoojinta tayada ciidanka qalabka sida ee dawladda Puntland la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah
iyo burcabadeeda ka shaqaynta helid dowlad federaal ah ee Soomaaliya martigelinta shirkii Garowan Garawatu iyo Gaalkacyo ee laga wadashanay xal u helista Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas wuxuu soo noqday ra'iisul wasaare ka soo noqday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isagoo gaarsiiyay Soomaaliya horumar la taaban karo kana saaray dowladda federaalka ah nidaamkii ku meel gaarka ahaa waxyaabaha uu Puntland ka qabtay waxaa ka mid ah xoojinta nabadgelyada iyo dib u dhiska xarumaha ammaanka dib u heshiisiinta cadaaladda iyo dimuqraadiyadda ganacsiga dhaqaalaha dhiirigelinta maalgashiga horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta arrimaha bulshada caafimaadka iyo waxbarashada maamul wanaagga isla xisaabtanka iyo musuqmaasuqa madaxweynaha imika talada haya oo ah Saciid Cabdullaahi Dini oo ku guuleystay 2009 bishii 8 kana guuleystay musharaxiin fara badan oo markaas la hirdamay oo kamid ah musharaxii Cabdiweli Cali Gaas waxa qalinka u qaadatay halkan inay ka tabinaysaa taariikhda Puntland anigoo ah Samsa Abshi Faarax وبالدد أقول لباهاقيو وحي يورتيجي وحي هاد جيرة انت أصباهيون أبين كمغنا وبالدد أقول لباهاقيو وحي يورتيجي وحي هاد جيرة انت أصباهيون أبين كمغنا هذا قبل شذا وهذه برشو وحي هرقليو وحي هكت قالي وهاول قلا البيق صدقو